السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيد السلامي سؤال هذا سيتين حس حابته اللي في عينها وصودا هاي حوجا رالي هذا وحواي وينترك وعاجز ميران هذا وريدين شيء وبارع وعاجز بدني هاي واسكت بلابد بدني هاي سعد بان آدي والوجي مركا intaan meelaha mareysanayo cunti waxaas karkarsanayay ba waqtigii oo dhan ba ma aragtay waana isku winterkana ma habeenkii ba yar maalintii ba badan marka waxa la habeenkii ba badan maalintii ba yar marka soo dhawaada waa idin salaamay kor waad ku aragtaan waxa barnaamijku caawa ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay caawa barnaamijku social anxiety soo dhawow sagal waa ku salaamay xabiibati assalaamu calaykum soo dhawow khayr iyo Belgium maasha allah soo dhawow maasha allah waa ku salaamay I know inaan asxaab ku leeyahay Belgium ka ina Europe oo dhan ku leeyahay waan ku soo dhaweynayaa xabiibti kulligiin waa idin soo dhaweynayaa ma taqaanaa اوكي نظيفة علي السلام عليكم حبيبتي اوكي ليلى حبيبتي سودو اوكي عد كان كرو قاضية هاي عد كرو قاضي هذا اوكي وحا وايك السلامي ابراهيم سودو وحا واي يعني هي social anxiety أما social anxiety هذا symptoms كذا قالوا وحواي symptoms أنت أنا قليني social anxiety عليكم السلام وحواي social anxiety وحي كذا لتي أما social anxiety وحيدهان social disorder وحيدهان وحي كتمي دو كليتو متقانا phobia social phobia كتمي أو phobia marka hadda anxiety waxay noqotay big feel bay noqotay marka wax way weyn tahay anxiety ka maadaama ay weyn tahay aniga caaw waxaan kaliya ku ekaanaya social anxiety marka social anxiety ga wax waaye iyo wuxuu yahay iyo waxyaalaha keena ama sida qofka looga caawimi karo caruurta dadka waaweyn siday ugu dhacdo normally our daily life keena marka horta social anxiety waxa weeyaan waa taas symptoms keed waxa waaye waa in qofku uu yacnihi uu ka cararo ama uu ka durko ama ka cararo ama avoid gareeyo ama mataqaanaa uu dareemo inuu ceeb ama embarrassing ama mataqaanaa waxyaalahaas dareenkaas uu dareemayo ayaa waxay keenaysaa qofku inuu cabsi gasho marka cabsidaas gelaysaa waxa waaye marka social anxiety halkaas ka imaanaysa meesha social phobia uu farabadan yahay oo waxyaalo khatar ay jirto imaan karo soo gali karay marka haddii aan wax yar aan rabo inaan ka sharaxo waa maxay social mataqaana anxiety-ga maxay tahay symptomskeeda ama waxyaalaha lagu garto so waxaa jira jir ahaan maxaan ku dhahaa wax calaamado jir ahaan qofka ama uu dareemayo iyo calaamada uu dareemayo dareen ahaan uu dareemayo muxuu dareemayaa marka hadda waxaan rabaa inaan kor istaago maaragtay jir ahaan muxuu qofku dareemayaa wuxuu dareemayaa inuu indhaha si fiican wax uga arag horta marka hore waxaan dhahay waan sheegay waa sharaxay inay tahay inuu qofka sideedaba social anxiety waa cabsi iyo embarrassing iyo xoga ceeb inuu dareemayo inuu dadka dhex galay inuu ka baqayo fear cabsi weeyaan marka ugu horeysa taas waxa waaye waa definition-keeda marka laga hadlaayo symptomska physically symptomska markaan ka hadlayno oo kuwa distresska ama extreme distress waxa waaye waxay dhaheen indhaha fishinka aragtida inay kaa noqoto inaad si fiican wax u arkayno wax ku hor yaacayaan wax indhahaaga ma aha cad ma clear ma
waxbaa ku hor yaacaya waxa kaloo jirta waxaad moodaysaa in wax ku bushgaraynayaan ama ku riixayaan waxaa jira xabadka qofkii waxaasoo dhan isku arkaa ha isu fiirsado waxaan leeyahay u fiirsada si fiican ugu fiirsada carruurtana marka ay carruurta yaryarkaana midooda gaar baan uga hadli doona way fara badan tahay laakiin carruurta laftirkooda hala waraysto aad buu carruurta ugu dhacaa teenagerka maxamed soo dhawow waa ku salaamay marka waxa waaye waxyaalaha lagu garanayo symptomskiisa waxa waaye xabadka wuu xanuunaya qofka chestiga xanuunaya waxaa xanuunayo kale wuxuu ka dareemayaa xabadka inuu culays adkaan inuu adkaanayo ka dareemayaa xabadka qofku wuxuu qofku dareemayaa qabow oo maaragtay inuu qaboobayo wuxuu qofku dareemayaa kaleeto caloosha shuban daariya buu dareemayaa shuban baa qabanaya wareer buu dareemayaa qofku inuu dhacdhacayo kaleeto oo uu dhacdhacayo wareer wuxuu dareemayaa afku inuu qalalo oo dry noqdo waxa waaye marka waxyaalahaas waxa waaye physical feeling baa for unrest unreality baa la yiri distraction okay or feeling of headache wax aan run ahayn buu dareemayaa madax xanuun buu dareemayaa qofkii badan wuxuu dareemayaa mataqaanaa wadnaha reydka wadnaha waxaa kacaaya garaaca wadnaha si fiican u kacaaya wuxuu kaloo dareemayaa qofka mataqaanaa inuu xataa markuu kacayo waxay ku leeyihiin cidda keliya ma xataa wadnuhu waxa weeye inuu dhug dhahayo inuu boodboodayo kaluu noqonaya wadnaha qofka sidii wax boodboodayo kaloo noqonaya iyo asagooba xataa uu maaragtay dee raising uu samaynayo waxaa jiroo kale dhuunta qofku wuxuu ka dareemayaa in wax kaga jiraan oo kale lamp bay dhaheen dhuunta sidii wax inay kaga jiraan oo kale maaragtay horta intaana kusoo qaban aan dhameeyo horta waxa maaragtay wixii haddaan dhex gelin oon kusoo qabto aan symptomska waxaan usoo galay inaan symptomska ka hadlo qofku markuu og yahay cudurrada mental issuega marka qofku yaqaano waxa keenaya buu iska ilaalin karaa ama iska daaweyn karaa oo dhakhtar u tagi karaa caawimaad raadsan karaa laakiin halkan ma aha meel oo discussion aan gelayno oo laaha experience-ka haddaa rabtid maxamed mar gaara waa ila soo xiriir waa ku soo casumayaa markaa waa ka hadlaysaa markaasaad adiga waad ka hadlaysaa waxa qofku dareemayo haddii kalena waxa waaye markaan dhammeeyo tan markaas kabacdi markaasay tan baad dhihi kartaa ay soo qabo laakiin marka ugu horeysa important thing aan la rabo inuu awarenessku yahay in dadku ogaadaan bartaan qalin iyo waxaas iyo wixii ay samaynayaan baynu ka hadlaynaa insha allah haddii alla idmo okay yes wax yar marka okay marka waxa waaye waxaan marayay maxaan ku dhahaa dhuunta waxaa imaanaya murqaha inay ku kacsan yihiin tension muscle tension baa imaanaya murqahaaga inay kacsan yihiin baa imaanaysa insomnia imaanaysa hurdo la-aan baa imaanaysa waxaa imaanaysa inay kugu yaraato neeftu oo qaadashadeeda kugu yaraato ama ay wax maaragtay ay kugu samaynayaan xanxantoo kaleeto ay kugu samaysmayaan baa imaanaysa waxaa kaloo imaanaya maxaan ku dhahaa waxaad maqlaysaa inay sidii maaragtaa beelka ama kangu maxaa la dhihi jira af soomaaliga beelka maxay ahayd gambaleelkoo kale dhagahaaga in gambaleel ka yeerayaan baad u malaynaysaa maaragta oo gambaleel baad sidii gambaleel oo kale in dhagahaaga ay ka ciyaayaan adoo dhan waxa waaye waxa ku gelaya inaad sheegaraynayso ruxmaysid baa ku gelaysa okay insha allah laakiin waa haddaad sugtid waan kusoo qabanayaa markaan dhameeyo waxaan imaanaysa mataqaanaa
neefta waa kugu yaraysa inuu qofku dhidido waxaa imaanayo codka oo aan codkaan clear ahayn oo codkii sidii qof trembling voice qof u hadlaayo kale qofku noqonaya marka clear ma noqonayo marka waxa weeyaan taas waxa weeyaan waa physically wax qofka ku dhaca oo physical oo maaragtay connective symptoms waxay dhahayaan ama maxaan ku dhahaa emotional social anxiety disorder is also involve connective symptoms which are dysfunctional marka kan waxa waaye qofku waxaa imaanaysa qofku inuu bulshada ka cararo inuu dadka ka cararo inuu usan eye contact indhaha dadka indhaha ausan samaynin inuu iskuulki ka cararo inuu waxbarashadii ka cararo inuu mataqaanaa isku dayaba inuu avoid gareeyo ka cararo bulshadoo dhan uu ka cararo meelaha mataqaanaa dadku yimaadaan uu ka cararayo situationada ka cararayo inuu mataqaanaa hataa asagii self doubted qofkii waxa waaye wuxuu isleeyahay qof ma tihid waxba ma tihid qof waxaa tahay aan waxba kororsan karinin qof waxaa tahay liita qof hadda for example oo kale haddii meel meeting uu yimaado oo kale ama meel dad ka hadlaayaan oo laga hadlaayo presentation ama jaamacad hadduu dhigto ama dugsi sare dhigto ama uu mataqaanaa dee qof shaqaala yahay meel laga hadlaayo hadduu yimaado oo la dhaho dadka isbar oo kaleeto waxaa imaanaysa maxay dhihi doonaan aniga waxay malaynayaan doqon inaan ahay waxa waaye nacas bay ii malayn doonaan daawadu waa imaan doontaa isugdee ma aana dhammaynine waxaan ka hadlayaa symptomskii intaadan daawada gaarin qofku waa inuu ogaadaa inaga problemkeena soomaalida haddaana waxba sugi karno wax yar isuga symptomskaan ka hadlaa markaan ka hadlo sidee waxa loo daaweyna haddaanan aqoonba marka hore sideeba caawimaad ku raadsana haddaanan marka horeba waxay yihiin aan ogaanin marka hore waa inaan ogaanaas calaamadaha lagu garto iyo maxaan dareemaya xanuunka aan dareemayo muxuu yahay symptomsku waxa waaye xanuunka dareemaya maxaa koos gareeya iyo dawada waan fiirinayaa marka waxa waaye hadda way ku xigtaa kanay ku xigtaa marka hadda symptomski waxaa inoo dhammaynayaa midkii qofku suu isu arkaayay iyo maxaan ku dhahaa physically ama emotionally jir ahaan iyo dareen ahaan muxuu dareemayaa qofku markaa aad is ogaatid wixii oo qofku dareemo sideedaba wax markii la ogaadaa wax laga qabtaa haddaanaan ogayn wax kama qaban karno so marka waxa waaye insha allah marka wuxuu taas waaye inuu dadku uu qofku withdrawal sameeyo oo bulshada ka dhex baxo oo uu guri isku xiro ama meel isku xiro ama hadduusan isku xironin uu mataqaanaa negative beliefka uu isagu isku qabo strong negative belief asaga waxa waaye wuxuu aaminayaa aad buu wuxuu aaminayaa inuu mataqaanaa uu iska aamino wax xun maaragtay naftiisa inuusan qaymo lahayn maaragta inuusan maaragta wax qabsan karinin oo kale waaniga aan dhahayo maaragta dadka isagoo cabsida mataqaanaa cabsidu meeshii dadku isugu yimaadaan oo dad badan isugu yimaadaan shaqooyinka aroosyada xafladaha waxaas oo dhan uu ka cararaya wuxuu ka cararayaa inuu dadka la hadlo la sheekaysto wuxuu ka cararayaa maqaayadaha inuu tago wuxuu ka cararayaa inuu mataqaanaa bulshada dhex galo wuxuu bilaabayaa inuu cunto cuno badan oo ku xanuunka waayo xanuun aad u badan buu dareemayaa oo ah walwal badan oo ka tan badan buu dareemayaa qofku oo tankiisa dhaafsiisan buu dareemaya marka wuxuu kaloo maskaxdiisa kusoo dhacaysa intaa sheekaa ku socota sheekadaas maskaxdiisa qofka ku socota uu ka fikerayo oo sheekooyinkaas oo dhan waa sheekooyin ah in uu asaga uu isku maqan yahay oo leeyahay waxaa tahay qof liita waxaa tahay kan baa tahay kanaa tahay wax ma qabsanaysi sidaa tahay bububa maxaa lagu dhihi doonaa maxaa laga arki doonaa shaqooyinka oo kale wuu ka cararayaa oo shaqooyinka markuu waxa waaye shaqooyinkii oo dhan xataa kuma raagayo wuxuu ku dadaalayaa qofkaas inuu shaqooyinka uusan ku raagin sababta uusan shaqooyinka iyo iskuulka uga cararayo shaqooyinka ugu raagayn waxa waa wuxuu diidayaa dadka inay arkaan
maxaa lagu dhahaa dadkiibuu ka baqayaa situationkiibuu ka baqayaa wuxuu ka baqayaa baayadiibuu ka baqayaa marka shaqada kuma adkaan kara kuma joogsanayo kuma raagayo wuu cararaya shaqooyinkii iskuulkii wuu daroowal buu samaynaya wuu ka cararaya jaamacaddii sidaas oo kale wuu ka cararaya marka xaaladaas oo kale dee marka qofku ku jiro waxaa la rabaa hadda maadaama waqtiga aan kookoobayo hadhow waxaan ka hadli doonaa maaragtay waxyaalaha dhacaanada sida hormoniska waxaan kariyey gareeya markalaan ka hadli doonaa insha allah marka aan ka hadli doono qaybaha kale oo mental healthiga ku saabsan marka hadda maadaama mataqaanaa rashi laygu sameeyo self esteemkiis waa down qofkaasayto maaragta waa gudmar baan samaynaya marka hadda waxaan samaynaya sidee buu isaga yarayn karaa marka waxaas markuu waxyaalahaas oo dhan ay yimaadaan qofku muxuu ku yarayn karaya okay sideedaba qofku wuxuu ku yarayn karaa horta waa inuu marka ugu horeyso laba nooc baa jira ase 3 nooc mid qofku waxa waaye waa inuu horta iscaawimaa self help kow hadduu arka xaalkiisa inuusan mataqaanaa uusan asaga iscaawimi karinin marka wuxuu isku caawimayaa asaga waxa waaye qofku markuu is arko xaaladiisu siday tahay wuu isfiirinayaa wuxuu eegayaa dhaqankiisa dabeecadihiisu eegayaa dareemadiisu eegayaa markuu eego dadka qaarkood waxay sameeyaan waa la qoraa qofkii wax qori yaqaanaa waa qoraa siduu u dhaqmo haddaanse qofka qorina wuxuu eegayaa siduu u dhaqmo dhaqankiisa markuu eego taas way baan symptomskeedii la qaybsanayay dhaqankaaga markuu qofkii dhaqankeena markaan ogaano iyo sidaan u dhaqmayno maxaan sameeyaa okay waayo aan dadka uga carara maxaa igu kalifay inaan cararo okay maxaan cuntadan badan u cunaaya okay maxaan mataqaanaa aan college-kii u dhig samaynaya because qofku wax ma baranayo xataa wax ma samayn karo maskaxdii wax baran lahayd xataa ma jirto waayo waxa waaye dareemadan oo fikirka ah oo badan ayaa qabsaday meeshii iyo welwel kan badan baa qabsaday maskaxdii marka firaaqa ma helayso ay mataqaanaa ku fikirto so waxa waaye qofkii waxaa la rabaa inuu markuu intaasoo dhan ogaado ama ha qoro ama ha ka fekero markuu ogaado dhibkaas hadduu ogaado marka waa inuu caawimaad raadsadaa marka waxa weeyaan iyadaa la kala leh dad badan way maareeyaan oo waxay ku xiran tahay qofku siduu u yahay maxaan ku dhahaa iyo sida mataqaanaa uu dee ugu dadaalayo oo ugu fiican yahay ilaa dadka isku mid maaha way kala quwisan yihiin inner side-keena ku kala quwisanahay marka waxaa dhacda dad way maareeyaan markiiba wixii bay fahmaan markay fahmaanna way maareeyaan waxay dhahaan oo maxaa ugu fikerayaa markaas wax ka qabtaan oo toodskii iyo fikirkii badnaa iyo hadalladii wixii soo dhacaayay iyo wixii dareenkiiba iska yareeyaan iyo wixii bay isku dayaan dadka kaleeto marka oo aad ay u weyn tahay toodu social anxiety-goodu weyn tahay waxa waaye waa inay GP-ga u tagaan dhakhtarkooda u tagaan dhakhtarka markuu tago marka 2 nooc baa jirta dhakhtarku on order mataqaanaa xididadan kacsan iyo neerbiyaashan kacsan neerfka kacayo qofku nervous buu noqonayaa ilaa neerbahan kacsan marka maxaa la sameeyaa dhakhtarku wuxuu samaynayaa daawuu siinayaa qofkan dad badanna ma seexdaan waa ku soo qabanaya mar dhow dad badan ma seexanayaan maadaama aysan seexan marka dadka badan waxa waaye wuxuu samaynayaa dhakhtarku daawu u qoraaya daawo markuu u qoro ayuu wuxuu samaynayaa mataqaanaa daawadii baa dejinaysa waxay ku xiran tahay ama asbuuc buu siinayaa ama hal asbuuc buu siinaya qofka waxa waaye waxay ku xiran tahay xaaladaha uu joogo daawadu markay dejiso qofka waxaa loo dirayaa counseling mataqaanaa cognitive therapy baa loo diraya qofka therapy baa loo diraya treatmentigu waa taas daawadu waa saas inuu qofku counseling tago oo uu ka hadlo waxaan oo mataqaanaa dee la siiyo xirfado iyo mataqaanaa waxyaalo uu ku koobi karo ama uu kaga bixi karaba xaaladaha wiilkaana soo qabanaya yiri isoo qabtay bal waxa laga yaabaa asagu inuu soo kordhiyo haddii dadka qof baa experience-kiisa laga yaabaa inuu la qaybsado dadka marka waan soo qabanaya raali ahaada okay waan ku soo qabtay adin okay kole
sababta looga baqaayo ma garanayo laakiin waan ka wada hadlaynaa aawa wiilkaan soo qabta ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو دhowow ها marka waxaan rabaa in yar inaan ka hadlo abaayo ninka farmaajo ah waxa weeye baalka waxa weeye xukunku waa iska joogaa waa maxay mana ka farmaajaha tegayo hey excuse me what are you talking about waxaan ka hadlaynaa maxaan ku anxiety social anxiety what are you talking about sorry waan kaa saaraya ya aniga uma tooganin halkaan farmaajo iyo sheekaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله كلمات من شر ما خلق what is that maxaa ii keenay farmaajo iyo ishuuyadaas anigoo ka shaqaynaya anagoo ka hadlayna another story sheeko kale waaye okay sheekada kusoo noqonaya dhakhtarka haddii qofku ka baqayo waa in uu raadsadaa yacnihii dad cawimo okay dadka cawimo waxa waaye waa inuu raadsadaa riisinka horta dhakhtarka uga baqay waa inuu ogaadaa haddii riisin jiro dhakhtarka ka cabsiinaysa oo uga baqaayo markaa caawimaad si kale uu ku raadsan karo waa inuu raadsada walaa bila waa qosla waa qoslaysaan qosla waa iga qoslinaysaan sheekadii waa sheekada waa iga qoslinaysa wallahi waa adduunkan mucjisooyinku waa iska badan yihiin waa badan yihiin marka waxa waaye marka waa ha waa dhakhtarka biqidiisu haddaa rabti waa ila soo hadli kartaa xataa we have to find out reasonka aa uga baqaysid ma insha allah we have to find out you guys making me laugh wallahi waa qoslaya sheekada farmaajo ma iga daysa aan programka wado waa qoslaya sheeka aan loo joog soomaalidoo dad badanaa saas wadnahay waa nahay malaha waxa waaye ma sheegayo waxba ma dhahay afkayga no way inaan wax dhaho laakiin waa laguma maqlo si ay ku dhacda inaan lay maqlaynin may maqlaysaan hilaal ma lay maqlaaye qofka ay maqlayna halkaas ku soo qor hadday ilaahay maqlay soo qoro biliis may maqlaysaan si aan qaybtaan ku soo gunaanadayaa mar dhow waxa qaybta dambaan ku darayaa waxaan rabaa inaan ku daro okay waaba qaylinayaaba codkaa gaaban baa la yidhi ma garanaayo sababta ma garanaayo waxaan rabaa inaan ku daro sideedaba waxaa la rabaa waxan waa dhacaamo iyo hormones ka imaanaya jirkeena oo sii daynayso mataqaanaa maskaxdeena soo daynayso dhacaamadan iyo hormoneskan cortisolkan ama dhacaamadanayto iyo hormoneskan waxaa la rabaa inay isu dheelitiran yihiin haddii qofku walwalka isku badiyo ama mataqaanaa uu cabsida markii la arko carruurtu waa ka gaar ilmaha yaryarka xataa waxaa la rabaa in la siboodgareeyo la cawimo walwalka dadka waaweyn markuu nagu badiyo wallaahi waa qaylinooyaa hadda aad baa codkaygu u dheeriya dhuuntii baa xanuuntay hadda ma garanayo sababta codku u gaaban yahay waxaan u malaynayaa wax ku systemkiisa ku xiran mana rabo inaan ka baxo waan gunaanadaya waxa waaye haddii maxamed qadar adiga haddaa rabta inaa hadasho aniga jaarisaan ku siiyey waxaana rabay issuegan aan ka hadlayno to be honest issuega aan ka hadlayno ah social anxiety-ga inaad ku ekaatid
annaga halkaan siyaasad uma imaanin madaxweyne farmaajo uma imaanin dadka kasoo horjeeda uma imaanin politics uma ana imaan waxaa u nimid mataqaanaa ishuuga aan soo qoray halkaa ku qoran waxbaa qoraysaa waxba waa akhridaa inaan ku ekaano marka I don't know waxa keenay maaragtay in aan farmaajo I feel embarrassing markaan farmaajo tiri because programkii oo dhan waxa waaye overtaking markii lagu sameeyo oo waxaan joogin meel kale lala aado waxaas completely waa wrong haddii aad rabtay inaad hadasho waxaad ka hadli lahayd exactly topic anna halkan waxaan u joogaa inaan wax manage gareeyo oo aan dadka wixii aan ugu talagalay ay isu socdaan laakiin I don't like inaan mataqaanaa bad kale iyo layman kale la ii galo aniga moogta marka qaali baad iga noqonaysaa aniga foodkayga maahan jaanis waa ku siiyey inaad hadashid laakiin adaa bad kale ila aadayo buur waxay saartay maxaan ku dhahaa buurihii kaara mardha maxay dhihi jireen kaara meel kale ila aaday anyway waxa weeye okay marka qofku dareemo qofku waa inuu ka baxo markuu dareemo inuu arrintan in wax ka sii yihiin ama uu mataqaanaa uu dareemo in dhibaato jirto uu dareemo waa inuu ku dadaalaa sida ugu dhaqsaha badan waa inuusan suginin maaragtay inay weynaato arrinta waa inuu ku dadaalaa markiiba ku dhaqaaqaa sidii waxaan uga hortegi lahaa ama ugu yarayn lahaa haddii aad qofkaasu markaa fiiri haddaadan keligaa noolayn oo dad kula nool yahay dadka your loved one ama dadkaaga waxay kugula taliyaan samee wax waaye haddaa caruur leedahay hooyooyinka caruurta leh waxaa u sheegayaa khaasatan hooyooyinka caruurta leh waxaa u sheegayaa haddii uu arrinkan ku weynaado hooyada ama qofka caregiverka ah qofka ilmaha xanaanaynaya ama aabbaha cid kastaba uu u baahan yahay dad inuu markiiba tago laakiin hooyooyinku waxay kaga sii duwan yihiin haddii ay arrinta wax ka qabanin oo aysan raadsanin mataqaanaa caawimaad aysan raadsanin ilmaha waa laga qaadanaa waa aan idin dhahayaa saas hadda waxa weeye dhibaatooyinku markuu qofka uu bato okay ma lay maqlo waa arkay intaa ka badanna ma samayn karno waa ku soo celinaa programka mar kale caawa intii badnayd waa idiin sheegay symptomski laakiin social phobiaha iyo isla iyadan baan marka ku soo celinayaa markaan ku soo celiyo I hope inuu codku sadan ka fiicin doono haddii kale computerka ay ka soo galayaan waayo mobilkan wuu fiicnaan jiray hadda wuu xumaaday waan u jeedaa codkii iyo kalarka iyo wax kasta wuu qaribayaa like nal kastoo aan ku shido marka iga raale ahaada waan ka baxayaa haddaydaani maqlaynin insha allah laakiin marka kale waan soo qorayaa muhiimadii hadda waa idin siiyey sidii mataqaanaa meesha laga dooranaya caawimaada waad haysataan marka insha allah waa isku soo noqonaynaa waa idin jeclahay